سبتي لو شئت تمكن نوفمبر waxaan bilaabnay bixintii kaararka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo rasmi ah run ahaantii stage fara badan aan soo gudubnay waxaan soo gudubnay inaan diiwaan galino waxaan soo gudubnay muwaadiniinta diiwaan galino waxaan soo gudubnay inaan soo gudbino liiska meel gaar waxaan soo gudbinay inaan dhisno finalistiga waxaan bilaabnay inaan kaararka daabacno waxaan maraynaa hadda kaararka inaan bixino waxaan noo dhiman hal step maalinta online soo marka waxaan rabnaa inaan maanta meetingkeena uu number 1 ka noqdo xagee soo gudbintii murashaxiintu meeshay marayso caqabadaha hadday jiraan waxaan rabaa inaan ogaano turko xagee idin maray labo ururo gaaraya dhowr iyo 40 urur oo idin ka tirsan ayaa waxay soo gudubsadeen inay rabaan time in loogu daro xilliga doorashada oo ilaa minay bisha November 7-keeda maanta waxaan rabnaa kaas aan kor istaagno maxaa keena baahida keenta maxaa way inaan waqti lagu kugu daro maalinka doorashada caqabadaha ay haysto maxay tahay maxaa u baahan tihiin qaarkiin waxaa sheegatan oo la inaa u baahan tihiin qaarkiin waxaa sheegatan inay jiraan arrimo kale waxaan rabnaa bal asagaasna inaan insha Allah tacaala kor istaagno kadibna aan fariimihii iyo wixii aan u baahannahay waan isleenahay waa wax naga maqan inaan si wada jir uga wada hadalno aan annagoo gacmaha is haysano dalkan Soomaaliya inaan geyno doorasho qofiyo riyada iyo shacbiga Soomaaliyeed dreamkooda waa maalinka aan sameeyno gobolka Banaadir dadku inay u dareeraan inay cod bixiyaan waa maalinka Soomaaliya albaabkii u furmay ahaa qof muwaadinka ay xuquuqda dastuurka u lahaa in la dooran karo waxna dooran karo in albaabkeeda furnaa dhowr isteeban soo dhaafnay waxaan maraynaa gabagabadii inaan dhamaystirno oo rumayno riyada iyada ah idin kala aantiina hawshaas ma socotay run ahaantii sanad guli ma noqon intaan dhisanahay shaqadii aan la qabateen iyo dadaalkii faraha badnaa aan muujiseen run ahaantii waxaan la ilaawi karin waxaan muujinaysaa inaad dad adag tihiin u dulqaata duruufo dhaqaale in haysta u dulqaata xaaladda marxaladda dalka marahayo u dulqaata dadkeena weli u diyaarsanayn fahamka guud ee ah inay doorasho qofiyo sameeyaan oo aad u liito inaad wacyigooda kor u qaadaysaan inaad campaign gareynaysaan TV-yada taagan tihiin qaarkiin baa warar bufsadeen socdaan dhaqaalaha haystaan oo kooban way adagtahay si lagu helo waan kaga maadinahay waxaan qabaa guusha iyada dalkeeda waxaan nooga dhiman kali wax yar oo kooban marka waxaan rabaa inaan kor istaagno guud ahaan in bal ururada soo gudbiyay iyo kuwan soo gudbinba inaan wax yar guud marana siisaan meesha wax idin marayaan maxaa idin caqabad ka hayso soo gudbinta murashaxiinta bal inaan ka bilaabo insha Allah taala ma santeen